السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو نقشوا عن أقرأ بدل أفتر تعسير. أهلا ومحسن تحي حسن ومال والبيت شغال أنت كحرا هيو أوفيشال هيو فاميلي لما أنت شرف يعيشي كرامينو تحي عاوة إنها نسخوصون نقونا وحالين هاي ميرو البواجب ومركي ugu horeysay hiba degan Allah u naxariistay ninkii qabay oo shaashad inta soo fariistay Soomaali oo la hadlay ayaan halkan soo fadhiistay oo kamid ah YouTube leeda qaar حسن إنك استو أفكيس وسقبني وسافلن وهذا الكرين ومركو حديدي سماد عد ومغلوب كستو إسكام روجانا أيو مركو حروا إن أنا فرتون أهان تيدا والقلوب تيدا كوجي لداودي عشان وشيء مركو تدا شيره يوتيوب ربضن أو مقدشو كنول ولي أنت كنول أبضن يوروبي دولكاس إن أوروبي أبضن أي دهايان إن مرحومة دلمة الله ونحريستو malab bay cuntay kanin bay cuntay kan ma jirto horta naf qof walba maanta ani nafteeda aan kula hadlayo meeshii loo soo joog alla og hadda markaan muuqaalkan duubo aan dhiman doonaba alla og runtu isku sheega Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa naga jeclaaday oo naga oofsaday maxaa marka kalifay maanta oo dhan maxay se tahay faa'iidada aan ka helino ama nagu kalifaya in maanta oo dhan aan dul saarano hiba waxana cuntay hiba waxana isticmaashay hiba waxana isticmaashay bal idinkan idin weydiinayay maxaa naga soo galaya Ilaahay baa idinku dhaariyay oo aan xan ahayn oo qof mootano maanta annaga aan iska kaay difaaci karin in aan maanta dhan waxa soo kala la dul saarnaano xaq uu nagu leeyahay ma ahan xaq walaalayaal uu nagu leeyahay ma aha Ilaahayna subhanahu wa ta'ala aan uga cabsano waxyaalaha noocaas oo kala ah waxa weeyaan waa waxyaalo aad iyo aad runtii looga fiican yahay oo aanan dhigaha shacabka Soomaaliyeed u wanaagsaneen walaalkeena runtii Xasan inta aad ka aragteen waa nin aad iyo aad runtii u afgaaban oo aanan inta badan bulshada daakhilin waa ninka aad aragtaan oo haddana muuqaalkiisa aan idin la wadaagi doono waxyaalaha macnaha waxa weeyaan noocaas oo kala ah hiba caruur bay ka tagtay maanta waajibka ina saaran horina aan u sheegay wuxuu ahaa war caruurta maanta hiba ay ka tagtay eedooyinka iyo adeerada iyo abtiyaasha iyo habarooyinka aan u nahay qaabkii aan u dareensiin lahayn in ay jiraan waalidiin iyaga jecel aan sameeno muuqaalkii hore ugu dambeeyay aan kaga hadlayay gabadhaas walaashan Allah subhanahu wa ta'ala u naxariistay ayuu ku jiray marka walaalayaal tii ma sameynayno anigii ma sameynayo adigiina ma sameynaysid haddana ma daanayno in maanta dhan aan daba wadno waxaasay u dhimatay waxaasay u geeriyootay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto walaashan walaalkeena hadda waxa uu sheegay in channelka macnaha waxa weeyaan loo bedeli doono hiba family in loo bedeli doono waxaan rajeynayaa insha Allah ta'ala dhammaanteen inta muuqaalkan daawato dhan inta aan subscribe u ahayn inay u soo saari doonaan isla markaasina ay la socon doonaan intii ay nooleed wad ogeydeen inta jeer oo idin ku codsanaysay gabadhaasi in macnaha waxa weeyaan horumar la gaarsiiyo muuqaaladeeda laakiin hadda markii ay geeriyootay baad moodaa in macnaha horumar la sii gaarsiinayo oo channelkii la soo booqanayo oo qof walba uu leeyahay waan ka xumahay geeridaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku naxariisto channelkeedii la soo booqanayo intii ay nooleedna codsiyadeeda inta badan Soomaalidu ma aanay fulineen dadka Soomaaliyeed qaarkood waxa ay doonayaan oo ay rabaan inay sameeyaan bay diidaan that's why marka maanta ayadoo geeriyootay channelkeedii nooca uu camiray markii ay nooleedna macnaha waxa weeyaan xaaladaas ay ku sugnaad oo dhamaantii wada arkayseen marka muuqaalka ma raba inaan idinku sii fogeeyo oo aan ku sii fogaado bal walaalkeen anna hore waa idinku sheegay xanuunkan waa wax xag Rabbi ka yimaada وحق ربي كيما ذو ويان قبل أصلا ما أيسن أهين بقول جربة إذا كوسو علني ما أيسن أهين وحان دتكو أي دبوضان قفر هذه ما أيسن أهين يبدأ كي برتي حلقة أي برتين ولا وذي قانا ما أهين قف معناها وحويان والركاز إيو شيكوين كمان تصومالذو أي دبوضان وح معناها وحكر هذه أما ديفكر هذه ما أيسن أهين إلهنا سبحانه وتعالى هون حرسته ما أنت وحيالها نلوغ بهيه oo annaga waajib ahaan looga baahan yahay oo laga marmaan ay tahay inaan iska xilqaano wax kala ma ah waa laba arrimood marka koobaad waa in aan u sii camirnaa Xasan walaalkeen oo macnaha waxa weeyaan ahaa sayigi hiba Allah u naxariiste inaan u sii camirna channelkii waa qodob ka labaadna caruurtii hiba ay ka geeriyootay abtiyaal iyo adeerayaal iyo eedooyin habaryaar bal u wadanahay annaga dhane in aan ogaano oo garab istaagno waa waxyaalaha muhiimka ah
iyo danta maantana looga baahan yahay ma aha in looga baahan yahay maanta oo dhan markaad furto Facebook markaad meel walba aad lugta saa u geliso in ay kaa hor timaado malabkaasay cuntay kininigaasay cuntay waxaasay cuntay war ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno waxaas macnaha wax qof mootan uu naga mudan yahay ma aha gabar walaasheen oo social media ku jirtay oo maantaas geerideedu ayna wada saameysay dad fara badanna qulubtooda ay taabatay wax ay naga mudan tahay ma aha ilaahay subxaana wa tacaala aan oga baqno waxyaalaha noocaas oo kale ah wax bara bulsho qof lagula wadaaga ma aha war qofkii intaad caadi u fariisato dul saarnaw haddaad doontee tacsidu yaysan afkaaga ka dhammaan laakiin maanta dhan inaad xumo fagfaagto walaalayaal dan adigana kuuguma jirto kan ku daawanaya ee commentiga kuu soo qorayana ee keep going kulana dan uguma jirto dhegihiisana dan uguma jirto adiga hadalkaagana dan uguma jirto maanta family bay hiyo allah subxaana wa tacaala ha u naxariistee ay ka baxday asxaab bay ka baxday owlaad bay ka geeriyootay qulubtooda marka maxaa taabanaya markaad maanta oo dhan war xun aad la hortaagantahay ma ka fikirta waxa qulubta dadkaa kusoo dhacaya kama aadan fikirin haddii aad ka fikiri lahayd waxaasoo kale maanta oo dhan ma aadan dul saarnaan lahayd waxyaalahaasoo kale wax maanta samayntooda annagana laga sugayo walaalayaal ma aha inaan ka feejignoonno oo aan ka dadaalno oo aan iska ilaalino wax walba waan isleenahay halkaa qadaf baa nooga imaan kara aad bay u wanaagsan tahay marka walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaalana ha u naxariisto mar kale macnaha waxa weeyaan arrintaas yarta aan idinka codsadayna ilaahay dartii subxaana wa tacaala aan u gudanno oo carruurtaas aan ka warqabno wiilkaas walaalkeena channelka wuxuu yidhi magaca waan ka bedelayna channelkiisana soo booqanno aan garab istaagno oo aan ku caawino inuu horey usii socdo isaga laftirkiisa aan uga tacsiyadano ilaahay subxaana wa tacaala wiilkaasna qalbiga ha u qaboojiyo carruurtaasna ilaahay subxaana wa tacaala ha noo barbaariyo owlaad macnaha waxa weeyaan annaga dhanna wada anfacdo oo diintooda iyo dalkooda iyo waxa weeyaan waalidiintooda anfacan ilaahay subxaana wa tacaala ha inooga dhigo annaga ayay noo joogaan oo maanta ay naga sugayaan xaaladda hadda lagu sugayahay qof walbaaba waa ma moogana qof moogan maanta ma jire ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay qalbiga allah idin qaboojiyo waalidiintii iyo eheladii iyo asxaabtii annaguna aan ka mid ahayn oo ay gabadhaas walaashana ka baxday aadna waa u mahadsantihiin